Halqadani waxa ay koobsanaysaa waxyaabo badan oo argagax leh waxaana kula talinayaa daawadayaasha inay aad uga digtoonaadaan. Waxa boolisku ku tilmaameen dilaac caadaysta magaalada waxa uu joogaa si tamashle ah waxaana hablaha uu leynayaa muddo 2 sano. geesta kale magaaladu waa ay qasan tahay dilalkuna waa ay socdaan. Waxa uu Gariima Faadin hore u baadhay boqolaal dambiye dil ah intuu dambi baadhaha ka ahaa qaybta booliska magaalada Charlotte laakiin xaaladani waa ay ka duwan tahay sidii hore. Tani ma ay ahayn fal boob ama tuuganimo ah balse waxay ahayd arrin waxshinimo ah waxaana jira tiro hablo madow ah oo la waayay ama la dilay. Dilka ciijinta ahina waa dil shakhsiyeed qofkan wax dilayna waxa uu ahaa qofka agdhow qofka la dilay taasoo ay keentay karaahiyo uu hayay qofka uu dilay ama cadho hore ugu qabayba. Inuu jiro dilaac caadaysta oo magaalada si tamashlaha u jooga waxay ku abuurtay magaalada cabsi aad u weyn. Markii la ogaaday cidda uu yahay dilaagan aan xalaawaayna dadkii aqoonta u lahaa waxay ku noqotay u qaadan waa iyo arrin madaxooda ka weynaatay oo aanay marnaba filayn. 25 sano kadib waxay dambi baadhayaashu soo afmeereen kiiska walaaca weyn ka abuuray magaalada Charlotte waxaana caddaatay in dilaagani ka dambeeyay 10 fal dambiyeed oo dil ah oo loo geystay 10 dumar ah. waxaana ay kalifeen dilalkani in 10 qoys dadkooda cadaalad u raadiyaan. xarumaha booliskana waxaa buuxdhaafiyey meydadka dadka la laayay ee cidda dishay aan la aqoonsan karin waxaana ay tani ahayd duufaan lama filaan ah. bilowgii xagaaga ee sanadkii 1994 waxa uu ahaa warwarka dambi baadhayaashu mid kor u kacaya waxaana la dilay tiro hablo madow ah. barkood waxay ahaayeen qaar la dilay halka qaarkoodna la waayay waqooyiga gobolka Carolina ee dalka Mareykanka. mana jirto cid ka warqabta sababta waxaana sida warbixintu sheegtay cad in dhammaantood la soo wacay intii aan la dilin. dumarka la dilay bilowgii 94 waxaa ka mid ah Shauna Hawk, Andrew Spain, Michelle Stinson, Vanessa Mark. 10kii Maaris ee isla sanadkaana waxaa la dilay Brandy Henderson. dhammaantood waa la ciijiyay laakiin waa ay kala duwaneyd qaabka loo ciijiyay. qaarkood waxa ay u ekayd in gacmaha lagu ciijiyay halka qaarkoodna xadhig soohan loo adeegsaday dilkooda. laakiin dilka Vanessa Mark waxa uu ahaa dilkii ugu foosha xumaa. waxay sameeyeen baadhayaashu inay si qoto dheer u baadhaan goobta uu ka dhacay dilka Vanessa Mark waxaana ay meel isugu keeneen dhammaan cadaymihii goobta laga helay. waxaa soo baxday isu ekaanshaha xadhkaha soohan ee loo adeegsaday dilalka Brandy Henderson iyo Vanessa Mark. taasina waxa ay muujisay in dilaagu isku mid yahay. dhanka kale waxa uu ahaa dilaagu mid sii wata dilalkiisa isagoo mararka qaarkoodna ka tegay raadadka falalkiisa. boolisku waxa ay baadheen qaabka guryaha u soo galay noocadda ahayd ma awood ayuu adeegsaday mise deganaa waxaanay warbixintooda ku tibaaxeen inaanay haba yaraatee jirin wax awood ah oo u adeegsaday soo gelitaanka guryaha uu falalka ka geystay. waxaana taasi caddayn u noqotay in dilaaga iyo qofka la dilay aqoon fiicani ka dhexaysay. mid ka mid a gabdhaha la dilay oo la helay boorsadeeda gacanta oo alaabtii ku jirtay laga afrogay waxaa boolisku markii ay baadhis ku sameeyeen ogaadeen inuu maqan yahay kaadhkeedii lacagta waana sababta keentay in boolisku dabagal ku sameeyaan dhaqdhaqaaqa akoonada dadka la dilay. waxaana caddaatay in kaadhkii maqnaa la isticmaalay taasoo keentay in dambi baadhayaashu codsadaan in loo soo gacan geliyo dhammaan muuqaalada ay duubeen kamaradaha ku xidhan aagga u dhow bangiga si loo ogaado muuqa dembiilaha. tuugtu waxay ka warqabaan in marka ay bangiyada aadayaan kamaradi duubayso waana sababta boolisku wejigiisa si fiican ugu aqoonsan waayeen. keliyata waxay ogaadeen inuu yahay nin madow ah oo xidhan dhego dahab ah kuwaasoo u samaysan sida mucatabka. baadhitaankana intaas ayaa ka soo baxday wax natiijo ah. dambi baadhayaashu markii ay si qoto dheer u baadheen dilka Brandy Henderson waxay gebi ahaanba bedeleen qaab baadhitaankoodii waxaana ay filayeen mar walba inay jiraan caddaymo kale oo muujinaya xiriirka ka dhexeeya dilalkan. dhinaca kale isbedelka qaab fikirka maskaxeed ee dilaagu waxay keentay inay gebi ahaanba isbedesho goobta faldambiyeedku waayo markaad eegto kiiska Hawk oo ka mid a dilalka ugu horreeyey waxa uu dilaagu tirtirayaa raadadkiisa. markase la eego dilka Henderson goobta lagu dilay waxay u eg tahay mid khariban oo muujinaysa in dilaagu daroogaysta yahay amaba khabriye cabaan nolosha rajo ka lahayn. waxay dambi baadhayaashu weydiiyeen dhammaan qoysaskii hablahooda la dilay inuu jiro qof dhammaantood aqoon u leh laakiin waa la waayay cid la odhan karo dhammaantood waa ay wada garanaysaa. George oo ah Brandy Henderson inaabtigeed waxa uu ka warbixinayaa inuu la hadlayay habeenkaas la dilay Brandy ayna ka dalbatay inuu guriga ugu yimaado oo uu weheliyeelo inta uga imanaya gacaliyaheeda lama isna waa uu ka cudur daartay isaga oo taleefanka kula hadlaya ayaana lagu soo garaacay albaabka Brandy isla markaana waxa ay u sheegtay inuu yimi qof gacaliyaheeda lama doonaya. George waxa uu sheegay in markii uu dilkeeda maqlay uu durbadiiba uga shakiyay lama oo ay isaga qudhiisa muddo kooban is yaqaaneen.
saacadihii murugta badnaa ee isxigxigay kadib dilkii Brandi Henderson, boolisku waxa ay su'aalo weydiiyeen lama oo keliya taan jacaylkiisu dhiban ee cunugiisana la dilay. waxaana u muuqatay demi baadhista in aanu isagu arrinka wax lug ah ku lahayn. waxaanay boolisku weydiiyeen su'aal kale oo ah inay jirto cid Brandi u ogolaan karto in ay gurigeeda soo gasho. waxa uuna xusay 3 nin oo kale ah Elijah Lur, George Bowler iyo Henry Wallace. demi-baarayaasha hore ayay u waraysteen inaabtigeed George oo ka mid ah 3 nin ee uu lama xusay, balse wax aqoon ah uma aysan lahayn 2 nin ee kale. kadib waxa ay bilaabeen inay raadiyaan in wax fal dembiyeed ah ka yaalo xarumaha booliska 3 nin, waxaana ay ogaadeen in dhammaantood wax kiisa lagu hayn marka laga reebo Henry oo lagu helay kiis ah tuuganimo, balse aan noqon karin kiis weyn oo loo raaci karo shakina abuuri kara. demi-baadhe Stanley Berlin waxa uu soo qaaday muuqaalka kamaradu duubtay ee aan sida toos u muuqan ee keliya ta la arkayay dhigaha mucatabka iyo sawirka Henry, waxaana u furantay waddo cusub oo ay baadhitaankooda ka bilaabaan. isla waqtigaana waxay bilowday demi-baadhistu sidii ay u soo qaban lahaayeen Henry, waxaana ay isugu yimaadeen kulan degdeg ah, waxaana ay isweydaarsadeen xogihii ay hayeen. 30 daqiiqo kadib markii kulanku bilaabmay, waxa ku soo dhacay taleefan, waxaana loo soo sheegay inuu dhacay dil kale. dilku waxa uu ka dhacay xaafadaha ku teedsan harada oo uu hore uga dhacay dilka Brandi Henderson. weli waxaa cad in dilalku sidii hore u socdaan. shaki kasta oo hore u jirayna waxa uu muujiyay in dilaagu yahay hal qof, kadib markii meel aan ka fogeyn halka lagu dilay Brandi lagu khaarajiyay gabadh kale oo lagu magacaabo Betty Betcon, taasoo la helay iyada oo sariirteeda gedigedi u saaran, dibnaheedana ay ka muuqato xumbacad. muuqaalka gurigeeduna uu ahaa mid qasan oo muujinaya in iyada iyo dilaaga dagaal ku dhex maray. baadhis kadibna waxa ay baadhayaashu ogaadeen in dilaagu qaatay dhowr shay oo muhiim ah, sida TV silis dahab ah oo ay lahayd Betty Betcon. saacadaha kooban ee u dhexeeyay dilka labadan hablood waxa ay muujinayaan in dilaagu yahay mid aad isugu kalsoon. 64 demi-baadhe ayaa laga howlgeliyay dhammaan guryaha ku teedsan harada, waxaana ay xaafadaha u garaacayeen guri iyaga oo weydiinaya in ay arkeen qof ay ka shakiyeen. geesta kale waxaa sii badatay cabsida laga qabo cidda wax dilaysa, waxaana bilaabantay in la kala shakiyo. qof walbaana wadnaha ayuu farta ku hayay isagoo ka warwar qaba goorta la dili doono. madaxa demi-baadhistu waxa uu ka codsaday in dadka degan xaafadu aanay bannaanka usoo bixin, guryahoodana u ogolaan inuu soo galo qofna xataa haddii ay garanayaan. markaa kadib waxay meel isugu keeneen dhammaan wixii ay xog ka hayeen Henry. dhanka kale waxa ay ka war heleen in Henry ku dhumaalaysanayo bariga magaalada Charlotte, balse meel cayiman oo lagu hagaaga aanaysan jirin. demi-baadhayaashu waxay heleen xog muujinaysa in Henry yahay daroogayste. goobaha faldambiyeedkana waxaa ka muuqata in dilaagu yahay qof lacag raadis u ah sidii uu daroogo ugu gadan lahaa. taasuna waxay keenaysay in kiiska Henry si qoto dheer loo sii baadho. intii lagu guda jiray baadhitaanka dilka Betty Betcon waxaa la ogaaday in gaadhigeedii uu maqan yahay, waxaanay demi-baadhistu dadaal ugu jireen sida ay gaadhigeeda u soo heli lahaayeen, iyagoo u malaynayay in dilaagu uu ku baxsaday. mid ka mid ah haweenka la jaarka ah waxa ay sheegtay goobta ay ku baarkimi jirtay gaadhigeeda muuse oolin wakhtigaas, waxaana boolisku qaybiyeen qoraallo ay ku raadinayaan baabuurka noociisu yahay Bosler, midabkiisuna yahay sibidhi. baafin kadib waxaa la soo xidhiidhay mid ka mid ah dadka xaafadda ku nool oo sheegay inuu arkay gaadhi weeg midka ay raadinayaan oo yaala laami ku yaala xaafadda harada u dhow. waxaana la yaab noqotay in dilaagu gaadhiga dib ugu soo celiyey xaafadda dilku ka dhacay, iyadoo waqti xaadirkaana ay ku sugnaayeen waaxaha booliska iyo demi-baadhistu. waxaanay u muuqatay inuu dilaagu yahay mid ciyaar fiican dheelaya. boolisku waxa ay degdeg ku yimaadeen goobta gaadhiga laga helay, waxaanay bilaabeen inay aagga xidhaan si ay gacanta ugu dhigaan dembiilaha. sanad ka hor sidan oo kale waxaa boolisku baadhis ku sameeyeen gaadhiga Shauna Hawk oo ka mid ah dadka la dilay. wax caddayn ah waa laga waayay. markii loo yimi gaadhiga Betty Betcon, isna baadhis ayaa lagu sameeyey goobaha muhiimka ah sida shookaanta, ismiidhka, gacanta, daaqadda, dhammaanse waxba waa laga waayay. waxaana ay bilaabeen inay baadhaan sanduuqa dambe ee gaadhiga. arrinka kadiska ahina waxa uu noqday in la helay farahaas oo uu leeyahay